السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baan idin salaamayaa walaalayaal ku soo dhawaada marka hore bogga rasmiga ah oo aan ku leeyahay Facebook-ga. maantay waxaan idin wadaa duco qiimo badan qof walba oo la murugiyay oo dhibaato ay haysato ducadii oo isku daaweyn lahaa. balse marka hore haddii aad boggayna ku cusub tahay like saar siina share garay asxaabta sidii uu gaaro qof allaala qofkii khayrkan iyo wanaaggan aad gaarsiisid ogow in ilaahay tabaaraka wa tacaala ajir uu kaaga qoraayo wanaagga haddii aad faafiso adiga waxay la mid tahay wanaaggaasi dadka amray haddii aad xumaanta faafisana adigoo xumaantii sameeyey ayay la mid tahay. saas ayaan marka hore isku dardaarmaynaa. balse ku soo dhawaada bal xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam. nabiga calayhi salaatu wasalaam maalmaha ka mid ah ayaa wuxuu galay masjidkii markii uu galay fa-idaa birajulin min alansaari yuqaalu lahu abuu umaama. isla markaasiba masjidka waxaa dhex joogo rajul oo lagu dhaho abuu umaama. markaasuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa abaa umaama maa lii araaka jaalisan fi lmasjidi fii kayri waqti salaa. maxaa kugu dhacay? waxaan ku arkaa maanta adigoo waqtigii salaadii la duka lahaa waqti aanay ahayn masaajidka joogee nabaduma jirtaa, sidee waxu jiraan? markaasuu wuxuu leeyahay abuu umaama humuumun lazamadnii waduyuunun, waxaa ilaasimay oo i hareeyey murugooyin iyo walwallo iyo walbahaaro danyaallo fara badan ilaahay rasuulkiisiyow. markaasuu nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam afalaa ucallimuka kalaaman, maku barbaraa hadal idaa anta qultahu haddii aad dhahdid adhaba allaahu caza wajalla hamak, ilaahay tabaaraka wa tacaala murugadaada ou tebinaayo subxaanahu tabaaraka wa tacaala waqadaa daynak, deynkaadana uu kaa gudaayo. markaasuu wuxuu leeyahay saxaabigii qultu balaa yaa rasuul allah, ilahay rasuulkiisiyow macnaha ii khabaro i barbar. nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qul idaa asbaxta wa idaa amsayta, haddii aad subaxaysato iyo haddii aad galabaysato dheh ducadan allaahuma innii acuudu bika min alhami waalxazi waacuudu bika min alcajzi waalkasal waacuudu bika min aljubni waalbukhl waacuudu bika min qalabati اddayni wa qahri rijaal. ducadaas cajiibka ee horlayaabka leh ayuu nebigu amray calayhi salaatu wasalaam inuu akhristo oo macnaheedu yahay ilaahu waxaan kaa magangelaa walwal iyo walbahaar, waxaan kaa magangelaa cajzi iyo wahsi, waxaan kaa magangelaa bakhli iyo fulaynimo, waxaan kaa magangelaa deynka inuu qaalib iga noqdo iyo dadku inay iqahraan. markaasuu wuxuu leeyahay saxaabigii fafacaltu daalika, arrinkaas nebiga uu ifaray ayaan sameeyey faadhaba allaahu caza wajalla hamii waqadaa dayni. allaahu akbar, ilaahay tabaaraka wa tacaala murugadaydiina waa tirtiray waa baabi'iyey, deynkaygina ilaahay waa gudiyey. xadiiskaas saxiixulbukhaari ayuu ku yaalaa. nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay balliquu cannii walow aayadba allah ka dhiga iga gaarsiiya. marka walaal sii gaarsiiya walaalahada muslimka ah. aad iyo aad ayaan ku salaamayaa. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.